ururka badda cas waa urur samafala oo ka dhisan dalka Suudaan gaar ahaan caasimadiisa Stockholm waa urur ka shaqeeya arrimaha khayriga ee bulshada Soomaalida ee ku nool qurbaha sida magaalada Stockholm waxa ku midoobay culimo awdeen aqoon-yahano kala duwan bahda qoraalka iyo dad kale oo tiro badan oo ehel u ah oo samafalida oo gargaarida iyo ku wacyigelinta diinta dhalinyarada Soomaalida ee qurbaha ku nool iyo dadka kale ee u baahan ku dhiirigelinta dhaqanka wanaagsan iyo ilaalinta qowlka eebe markasta ururka badda cas waxa uu dhisnaa in ka badan 10 sano tan iyo waqtigaasi dheer waxa ay wadeen barnaamijyo diiniya iyo muxaadarooyin loo samaynayo ubaxa ama caruurta Soomaalida ee ku nool qurbaha iyo dadka kale ee u baahan in laga wacyigeliyo xumaanta lana faro wanaagga qaybihiisa kala duwan waxa aad u soo dhaweeyay barnaamijkaasi ay wadeen muddada dheer ururka badda cas bulsho aad u tiro badan oo nasiib u helay muctamarada ay qabtaan ururkani waxa sanad kasta ka qayb gala dad aad u tiro badan gaar ahaan caruur iyo dumar kuwa soo dhageysta muxaadarooyinka iyo waliba barnaamijyada diiniga iyo aqoonta ee ay soo jeediyaan culimada iyo aqoonyahanada kala duwan ee markasta lagu soo casuumo barnaamijkaasi wacdiga ee ay wadaan ururka badda cas ururka badda cas ayaa ku soo casuumay markasta ay barnaamijkaasi qabanayaan culimo caan ah oo ka kala yimaada wadamada kale ee dunida kuwaasoo halkaasi ka soo jeediyay muxaadarooyin diiniya oo bulshada ka qayb gasha ay aad u soo dhaweeyaan gudoomiyaha ururka badda cas Sheekh Maxamed oo kala sheekaystay ururka badda cas ujeedada uu ka leeyahay barnaamijyada noocan oo kala iyo waliba waxyaabaha laga faa'iiday ayaa yiri waxweeyaan maanta munaasabadan aynu joogno waxweeyaan mu'tamar 3 maalmood soconayay oo magaciisu ahaa mustaqbalka da'yarta iyo kaalinta qoyska ayaa hadda inoo soo gabagaboobay mu'tamarkaasi sida ka muuqata ciwaankiisa wuxuu ku saabsan yahay da'yarta waliba ku koraysa qurbaha iyo marka sida uu mustaqbalkoodu u noqon karo mustaqbal fiican iyo waxyaalaha ka dhigi kara mustaqbal xun iyo kaalinta ay qoysku arinta ku yeelan karaan ayuu mu'tamarku ku saabsanaa 3 maalmood waxay ahayd 3 maalmood oo maalintii koobaad dhalinyarta u khaas ahayd labadii cashe dambana dadka waaweyn la hadlayay iyo marka maartay waalidiinta iyo dadka kale waaweynba mu'tamarkan waxa qaban qaabiyay ururka badda cas ee ka dhisan magaalada Stockholm ururka badda cas waa urur runtii weyn oo jaaliyada degan wadanka Sweden gaar ahaan magaalada Stockholm isku xidha dad ilaa 700 oo xubnood gaaraya ayaa ku xidhan inta badan waxa uu ka shaqeeyaa arrimaha khayriga ah iyo dadka isku xirkooda caruurta in wax la baro quraanka la baro in arrimaha iskuulka laga caawiyo in dadka waaweyn diinta la baro maxaan ku dhahdaa arrimaha noocaas ayuu ku in dadka marka dadka xanuunsanaya la soo booqdo in dadka geeridu ku timaado la taageero oo wixii loo qaban karo laga qabto geerida si marka martay looga tacsiin laga la qayb qaato arrimaha noocaas oo samafal urur ka shaqeeya waxaanu ka shaqeeyaa wadanka Sweden dhexdiisa wadankii inta badan waxba kama qabto gudoomiyaha ururka badda cas oo sii watay hadalkiisa ayaa mar kale waxa uu sharaxayaa qaabka uu ururkani u soo qaban qaabiyay barnaamijkaasi marka mu'tamarkan wuxuu ka mid yahay waxyaalaha sanawiga ah ama sanadlaha ah ee uu hadiga jeer qaban qaabiyo oo dhowr nooc ah waxa ka mid ah waxyaalaha sanawiga uu qaban qaabiyo mu'tamarkan oo ku baxa 3 luqadood waa luqadda af Soomaaliga iyo luqadda Swedishka oo wadankan Sweden luqadda lagaga hadlo iyo luqadda Ingiriisiga marka saddexdaa waxaan soo casuunaa aqoon-yahano iyo culimo kala duwan oo afafka kala duwan ku hadlaya luqadda Swedishka iyo Ingiriisiga waxaan inta badan u dooranay da'yarta xaggan ku kortay aan afka Soomaaliga aad u fahmahayn in marka maartay diintooda iyo arrimaha kale faa'iido u laba loogu soo gudbiyo Soomaaligana waxa lagu hadlaa dadka waaweyn marka runtii mu'tamarkan noocaas ah waxaan mu'tamar lagu guuleystay oo dad aad u fara badan ay ka soo qayb galeen waxaan halkan uga mahadnaqayaa dadkii kala duwanaa xubnaha badda cas oo iyagu ururkan jeebkooda shirkan jeebkooda ka maalgeliyay run ahaantii oo marka maartay ilaa 100 qof oo kamid ah ayaa min $50 bixiyay saasaanu shirku marka ku hirgalay marka halkan uga mahadnaqayaa iyaga iyo marka cid kale oo shirkado kale oo taageeray iyo iskuulana taageeray intaba guud ahaan ururka badda cas sida aan idin sheegay waxa uu ku leeyahay magaalada Stockholm 2 xaramood laakiin siyaabo kalena
oo aan xarumo ahayn uu u shaqeeyaa labada xarumood waxa duruusta iyo kulamada la sameeyo weygii waa ilaa 30 xalqadood oo kala duwan ayaa weygiisu yimaada 30 group oo kala duwan oo markaa wax kala faa'iideysta sidaas weey waxa kale oo barbar socota oo dhalinyarada iyo waliba dadka kale ee ka qayb gala barnaamijkaasi lagu bara dhaqan wanaaga aqoonta kale ee maadiga qaybaheeda kala duwan aanu jecel inaan isku xirno oo cilmi mariyay laakiin waxaan nahay organization isku xiraya bulshada iyo culimada iftiinka ifinaya annagana waxaanu jecelnahay inaan maqashaan oo marka wadiiyo culimada halkan joogta att vi låter bli att äta och dricka. Yani Allah subhanahu wa ta'ala han har skapat all mat som vi äter. Det är han som lät den komma ut från jorden. Om det är frukter, om det är kött, så det är Allah subhanahu wa ta'ala som lät. نعمة هيستان سكول صوماليات بساس عيال كيدن كقاضية معلم مركا نعمة هاس حجيستا إلهي نهايدين حجي تاسو همد أرنت اللوادين ربئين أن إدين كنتو حوية waxaad sameeysaa waa tala aan nafteedana kula talnay idinka kula talnay salaad subax markaa tukataan adigoo maskaxdaadu degan tahay naftaadu degan tahay warqad soo qaado waxaad tiraahdaa maxaa dan iigu jirtaa 1 2 3 4 caruurtayda maxay maslaxad ugu jirtaa 1 2 3 yaa igala shaqeyn kara saddexdaas su'aalo haddaad jawaab u heshid noloshaadu waa toosaysaa waxaad raadsanaysaa maslaxadaadan cidda kaala shaqeynaysa innaga inta badan waqtigeena wuxuu ku lumaa waxaan maslaxad inoogu jirin qaar ka mid ah dadkii ka qayb galay barnaamijkaasi ayaa ka waramaya faa'iidadiisa iyo waliba sida uu muhiimka ugu yahay dhalinyarada qurbaha ku nool waxaan oran karaa waa muctabar ku saabsan mustaqbalka daayarta iyo kaalinta qoyska labadii waxba waxaan baarsan yahay dhinac wuxuu ka hadlayaa dhalinyaradii dhinac wuxuu ka hadlayaa qoyskii runtii maanta waxaa jiray oo muctabarka dhinac socday laba kooras oo aad u qaaliya oo ah midna khuseeyo barbaarinta caruurta oo hooyadii ay chance u heshay inay ka qayb gasho midka kale arrimihii guurka oo qofkii guurdoonka ahaa dhalinyarada ahaa isna aanu meeshii ka marnayn marka waxaan odhan karaa laba chance oo qofkii dhalinyarada ahaa iyo kii weynaa labadaba ay ka faa'iideysanayeen buu ahaa waxaa kasoo qayb galay culimada runtii Soomaaliyeed dhammaantood intooda badan uu ka mid yahay Abu Dalha Sheekh Xambali shuyuukh badan wuxuu isugu jiraa ma aha kaliya diini dhaqankii baa ku jira caafimaadkii baa ku jira waxaan oran karaa runtii waa muctabar dhan kasta oo dhameystiran muhiimadda iyo waxa laga faa'iideysanayo kulankan ama mu'tamarkan ay badda cas qaban qaabiso waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan inay dadku isku bartaan dadku ku kulmaan dhalinyarada looga sheekeeyo dhaqankooda diintooda qiyamkooda iyo sharaftooda iyo waxa ay leeyihiin intaasun kuma koobnaa waxa la soo bandhigaa waxyaabo aad iyo aad u muhiima oo ay ka mid tahay buugaagta afka Soomaaliga ku qoran oo aad iyo aad u tiro badan yaa la soo bandhigaa waxa la soo bandhigaa suugaan baa ka mid noqonaysa gaar ahaan suugaanta caruurta waxa barbar socda barnaamij loogu talagalay waalidiinta iyo sida ubadka loo barbaariyo arrimo muhiima oo kala duwan oo aad iyo aad u qiimo badan buu xambaarsan yahay kulankan badda cas soo qaban qaabiso marka waa arrin aad iyo aad loogu farxo aanan dhiiri gelinayno hadduu la yidhaahdo in sanad walba lagu soo celceliyo la sii wado dadkuna maaragtay u diyaar garoobo oo waqtigaa looga faa'iideysto maanta barnaamijka socda waa muctamar loogu talagalay dhalinyarada wadankan Sweden ku nool waxaanu ku saabsan yahay horumarkooda dhalinyarada iyo waliba waxa dheer barnaamij kale ku saabsan horumarinta qoyska marka barnaamijka kale dhalinyarada loogu talagalay walaalo badda casna runtii waa ururka asaasan wadankan oo loogu talagalay dhalinyarada hawlaha guud ee bulshada madrasada diiniga ka furan dhalinyarada iyo horumarkooda waxaasoo dhan bay ka shaqeysaa intii uu socday waxa laga faa'iiday arrinka aan aad iyo aad hoosta uga calaamadiyo waxa kamid ah dhalinyaro fara badan oo iyagu afka wadankan aad u yaqaan oo afka wadankan ay yaqaaneen lagula hadlayo oo looga sheekaynayo diinta islaamka iyo qiimaheeda iyo waxtarkeeda waxa laga faa'iidaa dhalinyaro fara badan oo af Soomaali lagula hadlo oo afkooda hooyo loo kobcinayo waalidiin fara badan oo la barayo
barbaarinta ubadka waynu naqaanaa sida ubad loo barbaariyo laakiin ta ugu muhiimsani waxa weeyaan markaad beecadaada iyo deegaankaagii ka timaado ee aad deegaan kala tagto waxa weeyaan waxa jira caqabado fara badan iyo xujooyin fara badan oo ka hor imanaya si arrimaha looga gudbo waa inaad la qabsataa meesha aad joogto arrimaha laga faa'iiday ka mid ah barnaamijkan ayaa waxa maalgeliyay ururka badda cas Axmed Zaki Daahir Xasan Stockholm